Assalaamu calaykum daawade meel walba adduunka ka joogto ku soo dhowo mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxa uu yahay mid kooban laakiin waxaan rajaynaynaa in wax badan oo macluumaad ay ka ogaan doonaan dadka daneeya arrimaha caafimaadka iyo bulshada. Waa qaybta labaad ee warbixinadeena caafimaadka. Markan waxaan ku eegaynaa taariikhda cudurka Ebola annagoo hore kaga soo hadalnay calaamadaha cudurkani uu leeyahay. Fayruskan Ebola waa mid ka mid ah cudurrada halista ah ee waxyeeleeya bini'aadanka kuna keena dhimasho haddaan lala tacaalin. Celcelis ahaan dadka cudurkani u dhintay waxaa lagu qiyaasaa 50% marka lala barbardhigo dadka uu cudurkani ku dhacay. Qayb ahaan cudurkani waxaa loo kala qaybiyaa 5 nooc oo ay ka mid yihiin Bundibugyo Ebola virus, kaasoo lagu magacaabay kacdoon uu ka sameeyey cudurkani tuulada Bundibugyo ee dalka Uganda sanadii 2007 oo la xaqiijiyey in cudurkani uu ku dhacay dad gaaraya 56 qof. Waxaa jira nooc kale oo asna la yiraahdo Zaire Ebola virus. Kan waa midkii ugu horeeyay ee kacdoonkiisu ka dhaco xaafadda Zaire ee waddanka Congo sanadii 1976. Sidoo kale Sudan Ebola virus asna waa nooc kale oo ka kacay isla sanadkii 1976 waddanka Suudaan, galaaftayna dad badan oo cudurkaasi saameeyey. Marka eegno cudurkani waxa uu ku soo gudbaa habab kala duwan asagoo ka imaanaya xayawaanada una soo gudbaya bini'aadanka, kaasoo keenaya in dadka ay cudurkaasi isugu gudbiyaan noocyada kale ah: dhididka, kaadida, candhuufta, shahwada, dhiigga, mataga, shubanka ama saxarada, dhacanada hoose ee dumarka iyo weliba naasnuujinta. Muuqaalkeena maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa. haddaad nagu cusubtahay subscribe dheh, like saar haddii aad jeclaatay, la wadaag asxaabtaada si ay wax uga faa'iidaan. noo reeb fikirkaaga iyo taladaada adoo commentiska noo sii marinaya. mahadsanid, wabilaahi towfiiq iyo muuqaalka kan xiga.